السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دعوة على ملك السوق kusoo wanaagsan halkee bishara barnaamijka saaka soo kaliibsiga ciyaartooyda aan ku soo wararka ugu xisaabtan suuqa iyo warbixinaha salaam ku qabtaan suuqa wararka dhanka suuqa Inter Milan ayaa doonaysa inay u dhaqaaqdo xidiga kooxda Barcelona ee Rakitic ay isku dayi doonaan xidigan ay ka soo qaataan xilliga soo aadan ee daaqada kala iibsiga markii dib u furanto aanada ay doonayaan xidigan inay u soo dhaqaajiyaan dhanka iyo weliba Serie A-da dalka Talyaaniga xilli hore loola xiriirinayay xidiga iskuulkigan ee Luka Modric wararka dhanka suuqa waxaa ka mid ah Napoli ayaa isha ku haysa isla markaana kula loolameysa Manchester United iyo Chelsea bartilmaameedkooda xidiga lagu magacaabo Barella Napoli ay isku diyaarinaysa inay soo qaadato Nicola Barella oo horey u doonayaan kooxaha Manchester United iyo Chelsea markan ay doonayaan iyaguna inay soo qaataan ku ilaatan jirka khadka dhexe kaas oo ka tirsan kooxda Cagliari wararka dhanka suuqa waxaa ka mid ah Matteo Delight wuxuu doonaya inuu raaco wadadii saaxiibkiisa hore De Jong oo ku biiray kooxda Barcelona xidigan ayaana kooxo badan oo qaaradda Yurub ay doonayaan balse wuxuu doonayaa in uu maro wadadii saaxiibkiisa hore u maray ana uu doonaya in Barcelona uu kula biiro saaxiibkiisii hore warar kale dhanka suuqa ka mid ah Ibrahim Diazna ma doonayo in uu kooxda qaab amaah kaga tago Real Madrid ayaa la sheegay inaysan xidigan ayna ku diraynin qaab amaah iyo 20 jirkan ayaana ay ka soo qaateen kooxda kubadda cagta Manchester City oo gaaraya 15 milyan oo geni xidigan ayaana kooxda si joogto ah uga sii qayb noqon xilli la hadlayeen qaab amaah kooxda uu kaga tegi karo warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah xiliga kooxda Manchester United ee Gary Neville ayaa aaminsan in Manchester United ay ka soo baxday inay magacaabato hogaamiyahooda Ole Gunnar Solskjaer waxaana uu tilmaamay in kooxda ay ahayd in mar horeba ay magacaabato macalinka lagu magacaabay Ole Gunnar kooxda Manchester United ayaa la rajeynaya in si joogto macalinkan ay u magacaabato macalinkan ayaa horey loo tilmaamayay inuu khatar ku bareeray maadaama kooxdan ay ahayd koox socon weysay markaana Jose Mourinho laga ceeriyay xaalad xun u guda jirta laakiin 10kiisii kulan ee ugu horeeyay Old Trafford la xiriir ayuu gaaray waana rikoor cajiib ah macalinkan uu ku talaabsaday warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Mario Marwan Balotelli ayaa sheegay inuu doonayo in xirfadiisa uu kusoo gabagabeeyo horyaalka dalka Talyaaniga ee uu kasoo jeedo xidiga dhawaan kusoo biiray kooxda Marseille ee Mario Marwan Balotelli ayaa sheegay in xirfadiisa uu kusoo gabagabeyn doono wadanka u dhashay ee Talyaaniga 28 jirkan ayaa Marseille kaga soo biiray kooxda Nice bishii January waxaana xidigani uu dhaliyay hal gool labadiisii safasho ee ugu horeeyay tan iyo markii uu soo dhaqaaqay kooxda kubadda cagta ee Marseille warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Christian Benteke wax walba kama qabo imaanshaha kooxda uu yimaado xidiga lagu magacaabo Magic Batshuayi xidiga ay leedahay kooxda kubadda cagta ee Chelsea Magic Batshuayi ayaa qaab amaah ugu biiray xilligii ugu dambeeyay suuqa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace waryahanka kooxda Crystal Palace ee Christian Benteke wax walba kama qabo mana cabsanayo booskiisa kooxda kubadda cagta ee Crystal Palace kadib kooxda markii ay la saartay xidiga lagu magacaabo Magic Batshuayi warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Real Madrid ayaa la sheegay in ay iibin doonto xidiga lagu magacaabo Marcelo xidigan ayaana waxa uu dagaal kala dhexeeya macalinka kooxda mid kooxda keed ka galay sida darteed badan tahay in uu saaxiibkiisa ku fiican kubadda cagta ee CR7 uu kula biiro kooxda kubadda cagta Juventus warar kale dhanka suuqa waxaa ka mid ah Manchester United ayaa 200 milyan oo geni suuqa ku qarash gareyn doonta waxaana gool ah in kooxda kubadda cagta ee Manchester United ay ciyaartooy badan kooxda ay ku soo biiriso magacyo waaweyn ayaana rajeynaya in kooxda lagu xoojiyo si ay usoo laabato Manchester tii la yaqaanay xilli sidoo kale hogaamiyaha kooxda Manchester United weli kalsooni aysan ku qabin waxaana kooxda lala xiriirinayaa hogaamiyaha kooxda Tottenham Hotspur Mauricio Pochettino iyo Zinedine Zidane. Waa inta barnaamijka